wiil baa yiri gabadheed inaad ii damiinatid baan way adigu damiino weydaan ilaadaaba shaqeeyeen wuxuu yiri waxaan dumar ahayn lama rabo sida aad noo karaameyseen wada hooyo ahaan oo u karaameyseen wad gabdha ahaan oo u karaameyseen oo loo garab istaagteen baanu idin garab taagana habeenaya maalin qofkii aan u tago oo dhahoy damiinaba wuxuu yiri ku damiinan maayo adoo inta daba bari sideed bari aan wareegay hadaa wareegayna waan ka soo qoostay in la damiinto waxaan yiri wiil baan leeyahay shaqo yar haya oo aan dhalay wiilka ay u damiinta marka wiilkii ay soo kaxayeen wiilkii aan u keenay waa wiil yar wiilka hadaan u keenay waxay dhaheen hooyada haday dhimato ama dheeraato ma ka bixin ka lacagta wiilkayga yaraaba la igu damiintay markii saddexaad baa waxaan deganaa guri jingad ah baan deganaa maantii nimankaas gacan qabtay amal gacan qabatay amal jingadii hadda waxa ii tahay fiilo ما شاء الله waxaan ka sheegay guriga inaan dhistay laakiin laba gaarina waa kan gatay way inay shaqeeyaan maxaan ku raadayay kamana qataniyo intaas xoolahoodii baan cunayaa bangiga shaqaan ka haystaa waan ka ladnahay dadkii maanta ii damiinan waayay maanta anaa damiinta sida loo bahdilay إلا محوها للضمينة الذي أمل بانك ضمينة ضمينتين جزاك الله خيرا جزاء وحنا هل كان هنا كقيرو بانكي الأمل ما هنا بانكي كله إلا يحد عن هينو أنا كل وزارة هوين أكان يوقفها وزارة هوين كله وهل كان فديه ينتمقن سوزارة قبلها سالم لوجو أديجا يجعله أنا جوا كوه كامينا متجاوبا إنه سنجرين بانجي كله أو قبلها إسكتها إنه وحسية حتى دقيسته بانجي هذا كله كان عستطلو وضع إلى بانجي أمل شغلي كمان أكثر قبتين أو الريو برنامج كان تعبكال ودلي بريتار waxa amal bank sharaf u ah inuu soo kordhiyo baritaar adeega baritaar maalgelinta iyo kobcinta ganacsiga yaryar waxaan filayaa magaca baritaar in wax badan laga fahmi karo macnaha waxaan baarsan yahay ujeedada ay maaragtay waxaan baarsan yahay intaana baritaar marka gudaha u gelin waxa marka hore xusid mudan in amal banki uu maalgelinta aan faa'iido saarnay ee loo yaqaan qad xasanka uu siiyo ganacsiga yaryar ee dadka danyarta u badan yihiin waa maalgelin aanu sanad ka sabixino runtiina wax badan ka bedeshay nolosha dadka danyarta ah ee aan inta badan awoodin maalgelinta kale ee bangiyadu ay bixiyaan waxaan inta badan maalgelintaas u leexinaa deegaamada ka baxsan magaalooyinka waaweyn ama magaalooyinka loo yaqaan gaariwaaga ee durugsan ee aan lahayn adeegyada bangi ama ay ku yar yihiin waxaan sidoo kale in badan maalgelintaas ka bixinaa deegaamada duruufaha gaarka ay ka soo kordhaan hadba ay ka soo qornaan iyagana ka bixinaa waxa runtii farxad noo ah inaan halkan ka sheegno in ilaa hadda ay maalgelinta ka faa'iideysteen 9525 kamida ganacsiga yaryar runtii waa tiro aad u badan marka loo eego intaas oo ganacsi in muddo yar lagu maalgeliyo laakiin waxaan aaminsanahay inaan wali fari ka qodnayn insha Allah si joogto ayaan u wadaynaa maalgelintaas aan faa'iido saarnayn ee dadka danyarta lagu kaalmaynayo oo laga bixiyo guud ahaan wadanka Soomaaliya ee aan gobol gaar ah iyo deegaan gaar ah laga bixin waxaan sarnaa inaan ku kabno adeega baritaar ee maalgelinta iyo kobcinta ganacsiga yaryar sababaha soo socda dartood waxaan ogaanay in ganacsiyadii yaryaraa ee aan siinay qardo xasanka ay kobac sameeyeen si joogto ah ugu baahan yihiin maalgelin ay ku kobciyaan ganacsigooda ka horumariyaan qardo xasanka ama lacagta faa'iido aan saarnayn oo sanadka hal mar la bixiyo qadarhaana ka yar maalgelinta kale ganacsiga yaryar oo ah ganacsi inta badan ay ku tiirsan yihiin dadka intiisa badan majority bulshadeenu waxay ku tiirsan yihiin waa ganacsiga yaryar oo una badan dadka danyarta ah una baahan in xil gooni la iska saaro waa ganacsi ay hormuud u yihiin haweenka iyo dhalinyarada oo lafdhabar u ah dadkeena una baahan in mudnaan gaar la siiyo waa ganacsi guud ahaan wax weyn ugu fadhiya ee dhaqaalaha wadanka waa ganacsi aan inta badan sidii la rabay u kobcin nolosha ama biilka qoyska oo ku xiran darteed ama dhaqaalihii ganacsiga lagu horumarin lahaa aysan helin darteed sidaa darteed waxa amal banki ka go'an inuu ganacsatada yar ku garab istaago higsigooda iyo himilooyinkooda ay ku horumarinayaan ganacsigooda waxaan rabnaa inaan aqoontooda iyo xirfadooda ganacsi
hormarino annagoo tababarrada aan awalba siin jirnay oo awal joogtada ahaa inaan sii badino maadaama dadka hadda la maalgelinaya iyo dhaqaalaha lagu maalgelinaya intii hore ka badan yahay waxaan rabnaa in aan ganacsiga yar la socono maraaxiisha ay marayaan gaar ahaan inaan ka caawino sidii ay ganacsiga dhexe ilaa kuwa weyn u gaari lahaayeen hadafkeennu waa inaan isbeddel weyn oo la taaban karo laga sameeyo nolosha dadkeenna gaar ahaan in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada si aqoontooda iyo xoogooda looga faa'iidaysto aad baa u mahadsantihiin dad baynu si aqoonin laakiin waxaan ka mid ahay ganacsada amal banki oo aan u naqaano hooyo iyo aabe waxaan u ahayn dadkii ugu horeeyay ganacsiga yareerka ah ee qarda xasanada lagu bilaabay maantana maraya alxamdulillaah inaanu bangiga ka qaadano $20,000 $30,000 ganacsiga ayaga heerka uu gaaray markii dawladda Soomaaliya qaybteeda dhexe ee burburtayna shacabka waxa garab istaagay bangiyada ay ka mid yihiin amal banki waxaanu leenahay amal banki maalkaaga iyo ganacsigaaga ilaahay waxaanu ka barinay inuu ilaahay barakeeyo aan leenahay waxaan halka gaarsiiyay aaminimadii anagu hooyo ayna aamineen oo ay nagu aamineen maalkoodii iyo moodkoodii sidaas aan ugu ducaynaynaa ilmahayagina heer jaamacadeed ay wada marayaan hatta ka horba waxa la rabaa wiil baa yiri gabadheed inaad ii damiinatid baan waay adigu damiino weydaan ilaadaaba shaqeeyeen wuxuu yiri waxaan dumar ahayn lama rabo sida aad noo karaamayseen wada hooyo ahaan oo u karaamayseen wad gabdha ahaan oo u karaamayseen oo loo garab istaagteen baanu idin garab taagana habeenaya maalin amal waxtarka inoo qabatay wax meeshaan lagu soo koobi karo maaha ilaahay baa u xisaaban tahay waxaanu ahayn dadkii u horeysay oo amal lagu bilaabo baan ka mid ahaa marka waxaan sameynay dawladda hoose ayaa noqotay anagoo dad yara oo dadkii ka soo xirooday miyada ahayn oo xoolo ka cayroobeen dawladda hoosena waxay noo gudbisay amal caqabadii aniga igu horeysay markii horeysay igu bilowday caqabad baa igala kulantay waxa la yiri waxa keentaa damiin qof aad garanaysaan oo dan yara oo ka soo xirootay miyiga waan ahaa qofkii aan u tago oo dhahoy damiinaba wuxuu yiri ku damiinan maayo adoo inta daba bari 8 bari aan wareegayay hadaa wareegayana waan ka soo qoostay in la damiinto hadii aan damiintii waayay go'aan baan qaatay waxaan damay amal ku noqo waxa tiraahdaa niman yahow anigu kama bixi karo hal iska kaysidaayo magacaygana meesha la iga tiro hadaan u tagay nimankii amal iyaga ay garab siiyay oo maxaan ku yiraahdaa waxaan iri wiil baan leeyahay shaqo yar haya oo aan dhalay wiilka ay ugu damiinta marka wiilkii ay soo kaxayeen wiilkii aan u keenay waa wiil yar wiilkii hadaan u keenay waxay dhaheen hooyada hadday dhimato ama dheeraato ma ka bixin ka lacagta haabu wiilkayga yaraaba la igu damiintay caqabad horta taas ay iga soo kulantay khayr Allah siiyay waxa caqabad iga caawiyay amal bangi shaqaalaheeda waxa man caqabad ka maqan ha soo fariisaday waa la qanciyay lacagti bangiga kugu jidaalay akoonkaagi ku shubaysay bay lacagta kugu jidaa lacag badata kugu jirta haya bangiga kale igu wareejiye 45 qof baan ahayn dadkii la qaabilay maalinta 45 waxa lagu soo daray 40 waxa lagu soo qaatay baa laga soo qaatay 5 taas lagu soo daray mar labaad baa lagu ceshay markii labaad baa misna waa ka soo gudbay waa bixiyay markii saddexaad baa lagu waxaan deganaa guri jingad ah baan deganaa maanta nimankaas gacan qabtay amal gacan qabatay amal jingadii hadda waxa ii tahay fiilo ma sha Allah guri fiilaaba ii tahay waxa ii bareen oo ay tuseen inaan xadun xir caruurta u samaysto oo aan bangi furmay koon caruurtu leeda furo waxaan ka sheegay guriga inaan dhistay laakiin laba gaarina waa kan gatay wayna ii shaqeeyaan maxaan ku raadayay kamana qataniyo intaas xoolahoodii baan cunayaa bangiga shaqaan ka haystaa waan ka ladnahay dadkii maanta ii damiinan waayay maanta anaa damiinta bangi weeye amal oo bulshadana u roono baahideenna awdo badankiis ammaanaah adeegyada faraha badan baritaan ka kow tahay amal baaba bixisee marna yaan la baalmarin bangigaas ballaaran lacagtaad la beegtana adoon baadi goob gelin beledkaad ku nooshahay dhaqsaad ula baxaysaa
allah ayaa suurtageliyey marka labaadna waxaan uga mahad celinaynaa amal casumaadda ayna casuumtay marka saddexaadna waxaan uga mahad celinayaa wasiirkayga Dictoraysa Maryan Axmed Cali waayo qofka mas'uulka oo shaqada haya iyo meesha uu ku habboon yahay qofka mas'uulka wasaaradda ka ah baa geeya wixii halkaan aan ka dhagaysanay runtii waan xabeebsaday waan qiirooday wax aad u qurux badan bay ahayd dood oo hadlay laba gabdhood runtii waan soo dhaweeyay waana bogaadiyay waa wax aad u qiimo badan laakiin Xaliima qulubtayda waxay ku yeelatay si gooniya qulubtayda aad u dhexdegtay waayo hooyo Soomaaliyeed oo miyi ka soo barakacday xaaladda ay martay sida loo galay sida loo bahdilay إلا محوها لدمينة لديدي أمل بانك دمينة دمينتين جزاك الله خيرا جزاك الله برنامج كباريتار أمل كنتي باريتار هذا إنه في الصومال دي بيقولوا قنّو وقف ميل أنو جارين لو عاوية إنه جارو قف سلام فوليا ميل عن سلام أول قف ربع إنه لوجيه سلا جارو عن جاري كرين لكن أباهن إن لباريتارو سو هالك أوجار أما أوجا جدبو amal runtii way asiibtay hadii dadka aan gaari karin inay hanti sameeyaan ay ku caawisay inay hanti sameeyaan waxaana inagu filan marag nool qisada Xaliima Ciise inagu filan waa qisay yaable weeyaan waxa ku ballan qaadaya in barnaamijkaaga lagu soo celceliyo marar badan telefishinka dawladdu ku soo celceliyo sidoo kale baahinta barnaamijkan in bulshadu ka dheregto oo bangigu hal abuurka uu la yimi sida looga faa'iideystay mujtamaca uga faa'iideystay iyo baahida loo qabay sida isu waafaqeen in lagu soo celceliyo in badan iyadana waa in ballan qaadaya insha Allah hadii la gaarsiiyo amal meesha ay ka bilowday oo ah hablaha oo ah lafdhabarta qoyska inay maalgeliso iyagoo waxba haysan inay maalgeliso ay hantiilayaal noqdaan qoyskii ay awalba iyagoo waxba haysan ku filaadaan duruufihiisii dhalinyaradii ay jaamacada kaga saareen ugu guuriyeen muxuu ahaayey hanti ay ku nool guriyo u abuureen ay ku noolaadaan oo ay cooshado iyo jiingada ka soo saareen yani runtii amal banki aad baan arda ugu amaanaya كو حربا إن أنا مهد عليو بنجي الأمل ما ها مركي كوباد على شقينا يو مركا مسير كهراء هانا واسلا شقين جرني سعيد شرك إنتان أو كله أيو بنجي واجا نسميجر 2017 مركا وآدي هذا ومهد سنتين إن هذا هروسي مرسان ما هني إن إذا جوجين عاونات دي قبله وحكلام ربا هل كان إيران كشيء annaga haddaan nahay wasaaradda haweenka jihayntii ay gashay golaha wasiirada uu madaxweynaha ku hogaaminayay 7 casho qorshaheena wasaaradda haween ahaan waxa ku jiray in aan gabdhaha wax maalgelina u sameeyno oo aan uga doono bunuugta si ay horo u maraan ayna ka baxaan maxaa la yiraahaa hadda dhibaatooyinka haysta si ay qoyskooda maadaama wasaaradda ay tahay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ay waxay doonaan oo business ah ay ku abuurtaan waa idinku mahadinayaa inaad noo timaadeen banka al-amal aan ka wada hadalnay idinkoo hore ugu wadateen qorshihiina haddana aan soo tixgeliseen aan ka wada fariisanay aadna maxaa la yiraahaa barnaamijkii naga qayb geliseen wasaaradda haddaan nahay maadaama dadka ugu badan oo ka faa'iideysta ama ka faa'iideysan jiray barnaamijkiina aatiye bangiga al-amal waxaan rabaa halkan inaan ka qiro bangiga al-amal maahine bangi kale ilaa iyo hadda aan hayno annaga kolley wasaaradda haweenka haddaan iyo gabdhaha wasaaradda haweenka leh oo halkan fadhiya inta maqan saa wasaaradda gabdhaha saale oo loogu adeega iyagaa leh annaga waa ku hogaaminaa oo muddo gaaban inuusan jirin bangi kale oo gabdhaha iska daa inuu wax siiyay xataa dhageysta inuusan jirin haddii ay bunuugtaas maantana maqlayaan waxaan hawada u marinaynaa
waddanka ay joogtaan ummaddiisa dadka u daciifsan haddaydan wax siinin cidaa banuu ku tihiin annaga ma garanayno haddaan dowladdana bangiga al-amal wuu u bareeray waa u dhabar adeegay ilaa iyo inta aan ogahay hadda aniga in uu gabdhaha siday Xaliime Ciise ay sheegaysay ay aaminaan barnaamijka kan ay soo bandhigaysay bangiga amal oo ah barnaamij runtii diilo mudan farxad gelinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama uu yahay barnaamijkan barnaamij national oo Soomaali oo dhan laga daafurayo maanta magaalada Garowe oo dhammaan ku yeelan doona geyga Soomaalidu degto ama Soomaaliya guud ahaan barnaamijkan oo ah barnaamij uu dhalay Qardi Xasan oo muddo ay soo waday bangiga amal oo ka yaraa deynta ay bixinaysay waliba la siinayo dumarka danyarta ah runtii waa u mahadcelinahay bangiga amal Qardi Xasan ay dad badan ku soo maalgeliyeen oo horeysay haweenkii maanta halka ka hadlay oo runtii qisooyinkay ka hadleen qulubta ay taabanaysay dhageystayaasha oo aan rajeynayno sida wasiirka warfaafintu ballan qaaday in meel fog la gaarsiiyo si ay bulshada waxyaalaha wanaagsan waa la isaga daydaa waana sadaqo bangiyada kale ee ganacsatadu ay uga daydaan bangiga amal shaqooyinka wanaagsan ay qabteen oo horeeyo barnaamijka tacabkaal oo dhalay baritaan maalcelinta markaan ka soo gudbo waxaan rabaa bangiga amal inaan kelmad dhaho dumarkan aan kelmad dhaho ganacsatada si guud ahaaneedna iyadana aan kelmad dhaho saddex kelmaan ku soo koobo dumarka la maalgeliyey oo runtii tacabkaal ka soo gudbo baritaan u soo gudbay waxaan leeyahay runtii deyn baa soo bixiseen imtixaan baa soo marteen oo idinka iyo bangiga amal idin dhaxeeyay ammaanada laydinku aaminay runtii inaad ka soo dhalaasheen sababtoo haddii lacagtii laydin siiyey iyo ganacsatada laydin furay aad ku feelgaroobi lahayd ama ku dhici lahaydeen barnaamijkan maanta ma yimaadeen waxaan oranay horta ku wada mahadsantihiin waxaan rajaynayaa baritaan iyadana insha Allah inaad ka faa'iidaysataan hal talana waa idinku darayaa oo horey fardi baa u ahaydeen waxaan idinkula talinayaa inaad gurubyo samaysataan oo waliba bangiga amal uu idinka aqbalayaa oo waan kala hadalnay in shan iyo lix isugu xirnaataan lacag qaadataan shirkad magac la noqotaan oo sida iskaashato oo kala ah horumarku bulshadu markay is aaminto wada shaqayso wax wada furato ku jira